موضوع هالكن عن دون يوم نسير وكوبا عن ظهر ده وحوي وموضوع عادي ما تعبنا وموضوع يبرنامج مستقبل كدركن يدلكن سامين وين كنت يبي يراني وموضوع دليل كفرها بدل له ما تقلنجين إسا هالكن شوكتا أنت بدل كفكر إسا maxaa kugu xiga qalinjibintaada kadib oo ka warwaraysa shaqo-la'aanta baahsan ee dalkeena ka jirta oo runtii didiilo wanaagsan uu yeelayo mawduuca waxa weeye doorka Soomaaliland ay ku yeelan doonto ama iminkaba ay ku leedahay gobolkan geeska Afrika ee ay ku taal laga soo bilaabo markii Soomaaliland ay dal iskeed isku taagan noqotay waxa ay Soomaaliland noqotay goobaha ugu habboon ee hogaamiya isla markaana dunida ay u aragto meelaha wax xasilo markaad eegto gobolka aynu ku noolahay ee geeska Afrika iyo wadamada inagu xeeranba saddex arrimood oo dalalka soo koraya muhiim u ah koritaankooda dhaqaale iyo xasiloonidooda siyaasadeed inta badan kuma jiraan waxa ka uga oo ugu muhiimsan in dalkani yahay dal nabdoon dadka iyo dalalka kale jaarkaana si nabada uga dhaqmay laba inuu yahay dalalkan aynu ku noolahay geeska Afrika dalka dimuqraadi ahaan ugu wanaagsan wadamada inagu xeersan doorashooyinka kama dhacaan furfurnaanta siyaasadeed way ku yartay marka Soomaaliland goobaha ay ka sheekeynay ayay hogaaminaysaa waxaan jeclahay in isku taago mustaqbalka Soomaaliland soo weekaanayo 20 sano soo socda iyo sida dhaqaalaha iyo diblomaasiyadda Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhaxeeya ay arrintaa ay saameyn weyn ugu yeelanayso haddaan eegto dhaqaalaheena iminka waxa uu ku tiirsan yahay oo inta badan uu ka soo baxaa oo waxa ay dibadda ka soo dhoofin oo boqolkiiba 46 lagu qiyaaso waa GDP-geen boqolkiiba 8 waa inta qiimaha sida ama xawaalaha dadku ay soo diraan dhaqaale caynkaas oo aad u kooban oo GDP-giisa lagu qiyaasay 2023 bilyan oo wax aad u yar isla markaana ku salaysan waxay soo dhoofiso dakhliga dawladdu ay urusaana boqolkiiba 57 uu ka yimaado customerska oo berberiya kala beel lagu cashuuro baahiyaha waaweyn ee ummadan ay leedahay ma kafayn karayo waxa markaa muhiim ah oo ugu horeeya oo siyaasadaha dadka siyaasadda inoo wadaana ee hoggaanka inoo hayna ay runtii ka shaqeeyeen inta ay ka shaqeeyeen waxa weeye in isbeddel dhaqaale la helo si baahida dadkeena ee kordhaysa ay qabaan marka arrinta looga hortago arrintan carabka lagu dhuftay ee Soomaaliland iyo Itoobiya haddaad eegto daraasado badan oo laga sameeyay waxay sheegayaan in boqolkiiba 98 innaga iyo Soomaaliland iyo Itoobiya ay dhaqaalahooda ay wadaagaan sanadkii waxayna dhex mara lacag lagu qiyaasay 900 milyan oo dollar waa lacag ku dhow 1 bilyan oo dollar haddii heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen uu fulo marka laga yimaado aqoonsiga Soomaaliland ay helayso ee bulshada caalamka ay ka helayso faa'iidada dhaqaale ee la socota ayaa ka badnaanaysa runtii waxaana ka Itoobiya dhaqaalaheeda ay marsato wadamada gobolku waxa lagu qiyaasay inay yihiin boqolkiiba waxa lagu qiyaasay inay yihiin 18 bilyan oo dollar haddii heshiiskaasi hor galo waxa suuqa shaqo la'aanta ee iminka oo marka la qiyaasayo la yiraahdo boqolkiiba 70 weeyaan boqolkiiba 70 ayaa dhalinyarteeda iyo daayarteeda aan shaqeyn boqolkiiba 70 ka aan shaqeyn boqolkiiba 35 ka mid ah oo number ahaan noqonaya 56 oo qof ayaa faa'iido dhaqaale ka helaya mashaariicda caynkaas ee isdhexgalka dhaqaalaha Soomaaliland iyo Itoobiya waa arrin runtii aad u weyn waa arrin soo dhaweyn mudan oo ay tahay in runtii aad u adres garayno Soomaaliland waxaan filaynaa
inay noqoto meel nabadeeda sii waarisa oo nabadda ay ku guulaysatay hantida oo haysata dhaqaalaheedana isbeddel weyn ku samaysa siyaasaddeeduna noqoto mid furfuran haddaba waxaan ku soo khatimayaa barnaamijka intaa leeg ee arrimaheena diblomaasiyadeed iyo arrimaheena dhaqaale iyo mustaqbalkeena siyaasadeed ee bulshada caalamka aynu ku nool nahay isbeddelka weyn ku samaynaya wuxuu leeyahay oo idinkana idiga rabaa cadow aad u fara badan waxaynu ognahay laga soo bilaabo January 2024 ilaa maanta in ay Somaliland dadka iyo dalalka cadowga u ahi ee markii hore qarsanayay qaar ka mid ay lahaayeen isku dareen baynu nahay ay maanta soo wada baxeen waxaa idinka laynaga rabaa doorashaynu gelaynaa in doorashadaasi si badan u dhacdo waxaa kaloo laynaga rabaa oo dadka reer Somaliland ee idinku adkowga ka tihin laga rabaa in Somaliland waa marxaladii ugu adkeyd ee ay soo marteen inaynu dalkeena iyo dalkeena iyo dowladdeena isbarba taagno inaynu dadka inoo cadowgaa garanno in Somaliland ay noqoto meel sidii ay horaba u ahayd aqoonsi caalamiyana hesha dhaqaalaheeduna uu noqdo dhaqaalo furfuran cadowgeedana ka adkaata inaguna waxaynu leenahay Somaliland ha noolaato Somaliland cadowgeeduna ha dhalo doorashadana si nabada ku gala qofka aragti wada ee doonaya inuu dadka wax ka iibiyaana miidaanka ha iskeeno halkaa ha yimaado yaanu qabiil iyo xasho ku coday ha ku codeyn aragti ku codeey waa naasabti